kulanti wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada DSTV waxaan warbixintan ku eegi doonaa doorashada sida tooska uga soconaysa dalkaasi Uganda. Doorashada ilaa iyo hadda sida laga soo tabinayo waxa ugu horeeya madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni. waxaan ku eegi doonaa kuna qaadi doonaa natiijada ka soo bixin karta doorashadaas iyo sida loogu kala horeeyo. marka horese muuqaalka like sar, subscribe sar channelkan, sina share garay. waxaan filaynaa inaad nala faafi doontid warkan. dadka reer Uganda ayaa u dareeray goobaha codbixinta kadib rabshado ka dhacay dalkaasi oo sababay inay dhintaan boqolaal qof. madaxweyne Yoweri Museveni wuxuu raadinayaa markii lixaad in loo doorto xafiiska 35 sano oo madaxweyne ka ahaa dalkaas. 67 jirkan ayaa wajahaya Bobi Wine. madaxweyne Yoweri Museveni ayaa tartan adag kala kulmaya Bobi Wine oo ahaa heesaa hore oo caana. hase yeeshee ciidamada waddankaasi Uganda ayaa lagu eedeynayaa inay xoog iyo awood ku muquuniyeen dadka ka soo horjeeda madaxweyne Yoweri Museveni. kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeynaya ciidamada ammaanka inay adeegsadeen awood xad dhaaf ah sidii loo kala qaadin lahaa mucaaradka iyo dadkeedu ololeynaya. kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeynaya ciidamada ammaanka ee waddankaasi inay adeegsadeen awood xad dhaaf ah. hase yeeshee ciidamada arrinkaas way iska difaaceen oo waxay sheegeen inay ka ahayd ka hortag ay ka hortagayaan cudurka coronavirus oo kaliya. madaxweyne Yoweri Museveni wuxuu ka mid yahay madaxweynayaasha ugu waqtiga dheer ee dalkan, isagoo dhaqdhaqaaqiisa ay qabsadeen xukunka 1986 markaasuu dhammaaday dagaal socday muddo 5 sano. madaxweyne Yoweri Museveni wuxuu doonayaa inuu markii lixaad ku guuleysto jagada xilka madaxweynenimada. madaxweyne Yoweri Museveni waxay dadka dhaliila ku sheegaan keligii taliye, hase yeeshee dadka taageera ayaa iyaguna ku sheega nin dalkan wax badan u qabtay kana saaray faqrinimadii sidoo kalena la dagaalamay cudurrada faafa. waxaa madaxweyne Museveni dadka ammaana ku sheegayaan nin si weyn ula dagaalamay cudurrada Ebola iyo sidoo kale cudurka coronavirus oo dalkaasi uga dhacay 300 oo qof kaliya. madaxweyne Yoweri Museveni sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins Uganda waxay diiwaan gelisay 40,000 oo infection ku dhawaad 300 oo qof oo ku dhacay cudurka coronavirus. madaxweyne Yoweri Museveni ayaa dalalka reer galbeedku ka aaminsan yihiin jiilalka cusub ee u soo kacay dalalka Afrika iyo hogaamiye wax weyn ka bedelay qorshayaashii madaxda Afrika. Mr. Museveni ma jiro nin loo magacaabay bedelkiisa oo ka tirsan xisbigiisa, wuxuuna 2017 saxay sharci meesha ka saaraya waqtiga dhalinta ee talaahinta madaxweynaha dalkaasi Uganda. wuxuuna sidoo kale soo arkay hogaamiyaasha mucaaradka ee maanta la tartamaya. Kizza Besigye oo ka mid ah musharaxiintii hore ee dalkaasi u tartami jiray madaxtinimadiisa ayaa dhowr jeer oo la xiray kadib iskaga tegay xilkaasi inuu mar dambe u tartamo. inkastoo Mr. Museveni haysto saldhigga ugu ballaaran ee taageerada gaar ahaan miyiga, haddana waxa uu wajahayaa mucaarado sii kordhaysa oo la xiriirtay xukunkiisa iyo adayga uu dalkaasi ku muquuninayo. mid ka mid ah 10 tartame ee kula tartamaya xilka madaxweynaha ayaa sanadkan ugu daran, waana muusikiistihii hore Robert Kyagulanyi oo ku magac dheer Bobi Wine. si galgacal leh oo loogu yeero madaxweynaha mustaqbalka 38 jirkan ayaa noqday xidig caan ah oo ka soo jeeda bariga Afrika horraantii 2000 ka hor intuusan u wareegin dhankaas iyo siyaasadda oo sana ku guuleysan kursi xildhibaannimo 2017. Bobi Wine oo soo caan baxay sanadkii 2002 waxaa loo arkaa inuu yahay caqabadda ugu weyn ee hortaagan xukunka Mr. Museveni. wuxuu abaabulay dhalinyaro aan hore ugu jirin siyaasadda, wuxuuna u jiheeyay dhankaas iyo siyaasadda iyo inay ka hortagaan madaxweynaha xukunka dheer
madaxweyne Yoweri Museveni ma fududaysan caqabada oo wuxuu ku eedeeyay Bobi Wine inuu yahay wakiil ajnabi aan jeclayn xasiloonida ee madaxtinimada dalkaasi Uganda. Bobi Wine ayaa la xiray dhowr jeer tan iyo markii uu ku dhex milmay siyaasadda. wuxuu meelaha fagaaraha ah ka dhaliilaa dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Yoweri Museveni. ilaa iyo hadda codadka la tiriyay waxaa ku horeeya madaxweyne Yoweri Museveni. madaxweyne Yoweri Museveni ayaa haysta 3 milyan oo ka mid ah codadka la tiriyay, taasoo ka dhigan inuu haysto 62.74%. halka Bobi Wine oo anika soo xiga oo haysta 1,445,805 cod oo ka dhigan 29.34 inuu haysto boqolkiiba. waa natiijada ka soo baxaysa ilaa iyo hadda codadka la tiriyay wayna socotaa codadka tirintoodu. haddii uu Museveni ku guuleysto waxay noqonaysaa markii si lixaad oo waddankaasi hogaamiyo 35 sano oo hore u soo hogaaminayay. musharaxa maanta la tartamaya Yoweri Museveni oo dalkaani qabta 1986 ayaa 4 sano jir ah markuu madaxweyne Yoweri Museveni madaxweynaha noqday. waxaa la filayaa in komishinka natiijada kama dambaysta ah lagu dhawaaqi doono maalinta berri. musharaxa madaxweynaha dalkaasi Uganda ayaa isaguna Al Jazeera u sheegay in awood lagu weeraray dhismaha uu ka degan yahay dalkaasi Uganda iyo ilaaladiisa gaarka ah. Bobi Wine ayaa sheegay in madaxweyne Yoweri Museveni uu ku shubtay doorashada. guddiga doorashada ayaa dhinacooda sheegay in musharax madaxweyne Yoweri Museveni ku horeeyo codadka la tirinayo. ilaa iyo hadda codadku si toos ah ay u socotaa tirintooda. Bobi Wine wuxuu ka dhisan yahay dhanka iyo dhalinyarada. inkastoo dalkaasi Uganda uu u badan yahay dhalinyaro, haddana lama oga sida uu ku soo bixi karo Bobi Wine. madaxweyne Yoweri Museveni haddii laga guuleysto waxay ka dhigan tahay in dalkaasi uu geli karo qalalaasa siyaasadeed. walow uu haatan ku horeeyo dhanka iyo codadka la tiriyay, haddana lama oga sida xaalku noqon doono oo ilaa iyo hadda waxaa dhiman codad badan. heesaagana waxaa la rajaynayaa inuu dib ka soo dhismo.